daawadayaal halkan aan ku sugannahay waa hospitaalka Gurmad magaalada Labisagaala oo dhaca xuduudka Soomaaliland iyo kilalka Soomaalida. Magaalada Labisagaala ee degmada Sibawanaag waxaa laga hirgeliyay hospitaal weyn oo ay maalgeliyeen dadka ka soo jeeda deegaanka. Hospitaalka ayaa muddo dheer qabyo ah waxaana dhammaystiray ururka Global TJ6 oo ka shaqeeya arrimaha deegaanka. Qaar ka mid ah xubnaha ururka oo booqday ayaa ka warbixiyay qaabka loo dhisay hospitaalka waxaana ka mid ah hadaladoodii. Anigoo ku hadlaya afka Global TJ6 Hargeysa Somaliland oo dhan xogeyntii reer Somaliland baan ahay saasa ka arkaysaan waxaan soo booqanay isbitaalkii oo hadda iska gabagaba ah oo kulli xaal yar u harsan yahay ugu talagalnay in sanadka cusub furitaankiisu uu la kowsado haddii alla qadar insha Allah taala kulli salaamo socotaan aad arki doontaana waxa daymanka aan oran karo wax weyn baa u haray way iska yaryihiinba maadaama inta anaga hawsheedii Global TJ6 qurba iyo qulqul joogba ay ahayd kulli waxa imka maanta aan oran karno xal weyn baa haray ma jiro waan sida quruxda leh bilicda leh ee u dhigata isbitaaladii ku yaalay magaalooyinka iyo caasimadaha ayuu bay maartay la standard tahay kulli hawdhow wareejinteeda iyo cid lagu wareejin doono cid hawshaas ka qaadan doontana waxay gadaal bay ka arki doontaan isbitaalka wax loo bixiyay waa Global TJ6 Gurmad Hospital marka reer Sibawanaag ama reer Labisagaale oo de Sibawanaag ay maamusho waxa leenahay idinkan waxa idinka baahan yahay inaad maanta gacmaha isu qabsataan si aad u ilaalin lahaydeen haday caafimaadkii noqoto haday biyihii noqoto haday electricity loo baahnaa ee solarkii ahaa hadii loo baahdo kulay qorshaha waxaan ku dari doonaa maalinta furitaankuna ma isbitaalkii oo dhameystiran furi doono laakiin waxaan u igman doonaa inaanu cid kale markaan ku wareejino hadii alla qadar insha Allah taala cidaasi mas'uuliyadeeda iyo qaabka category iyagu maaragtay hawlaha u qabsanayaan maaragtay iyaga maaragtay laga xisaabtami doono annagu deegaanka ma maamulayno laakiin dushun baanu kala socon doonaa annagu daladii guud baanu nahay ee garxajis gaar ahaan muxuu ahaa gudida gurmadka degdega ah ee maaragtay deegaanada garxajis baanu nahay cid kasta oo mas'uuliyad ay ka saaran tahay deegaankan waxaan rabnaa in si waan oo qurux badan deegaankan iyo dadka deganba loogu ilaaliyo biyaha iyo caafimaadka iyo waxbarashada intaba saacada waxaan taaganahay isbitaalkii Labisagaala oo hawshiisa bariyahan dambe gacanta ku haya dhameystirkiisa marka koobaad waxaan mahadnaqayaa dhammaan qolada ururka Global TJ6 oo qabiyatir balaaran u geysatay dhakhtarka Labisagaala oo muddo dheer qabiya ahaa cidda u gurmatay ee hawsha isku xilqaantay ee aad uga shaqeysana waan u mahadnaqaynaa kulli anigu waxaan ahay ninkii hawsha dhameystirkeeda dambe waday dhismaha injineerka ka ahaa haddaan warbixin yar kooban idinka siiyo horta marka koobaad aniga hawshii la diray waa taas oo iga dhan tahay waxa ugu dambeysay labada qol oo markii hore qabiyaha qaybta hore ka hadhay iyo suuligaas oo loo soo dhaweeyay oo si markii psychology la eegay in aanu dhakhtarku ka maarmi karin suuli u dhow suuligii iyo bulaacadiisii oo uu soo dhaweynay qaybtii umulaha iyo waadka aniga qaybtii markaa la diray ee contract la igu siiyay global ay igu siisay aniga waa ka way iga dhan yahay waxaan markaa halkan ka sheegi lahaa kulli hawsha waynu dhameynayo waa taa la boardku dambeeyay waa maanta la taagay kulli hawshu saa imika kuma dhamaanayso oo baahiyaad kale oo daruuriya baa jira oo u baahan yahay wuxuu marka hore ka kooban yahay 4 qol iyo ward iyo store iyo xafiiskii ayuu ka kooban yahay iyo 3 suuli weyn oo halkan oo imkaan ku darnay iyo 2 suuli oo dambe oo markaan aragnay inaan anfacay inuu ka fogin aan u soo dhaweynay suuligan sidaan ururka isla ogeyn iyo gudida odayaasha marka ay caynka tahay kulli baahiyaadka jira waxa kamid ah meesha marka koobaad horta leer ma leh oo san horeba idinku soo sheegnay qaybtii hore idinku soo gudbiyay
de meeshu waa miyiyo kolley habeenkii dhulku waa madow cusbitaalkuna kolley muraayadu leeyahay iyo adeegyada casriga ah baa lagu xidhay marka horta marka koobaad leeru waa koobaan leeyahay oo de meesha habeenkii de waxa tacabka iyo kharashkaasi galay haddii ay madow noqoto de wax badan baa dhiman sida arkaysan xaggan waxa ka soo jeeda inta in leego kale seeska taagan oo deegaanku ay dhiseen beriga hore kan la dhisay ee jaajuurka banadiisa la dhisay ay taageen baa isaguna xaggan inaga xiga waxa kale oo jirta kolley biyo waa laga maarmaan oo de nafsiyo biyo way siman yihiin oo kolley meeshu inay haddii hospitaal tahay biyo kama maaranto biyihiina waa iyaguna waa laga maarmaan biyana way u baahan tahay waxa kale u baahan tahay in la qalabeeyo oo de hospitaal shaqeeyo uu noqdo kolley sideen ognahay halkan waa xuduudkii hadda taaganahay hospitaalkan ama wuxuu MCH-kan waxa loogu talagalay inuu waraabiyo deegaan ballaaran ilaa iyo kilka Ethiopia marka laga soo bilaabo oo ilaa deegaankeena sare hawdka Ethiopia kolley area-dan waxa hospitaal ma leh marka waxaan leeyahay in la qalabeeyo la furo oo cidii de shaqada leh iyo dawladda wadadii loo mari lahaa lagu dadaalo qolada kolley ururka waxaan fari lahaa kolley de garo la qaatay idinka dhamaystiray waxyaabaha yar kolley qaban kareysaan hadhayna waxaan oran lahaa wixii ka tari kartaan ka soo tara oo waliba biyaha soo raacay leerka waan oran lahaa de dawladda iyo cidii kale dalka ka mas'uulana deena waajibkeeda ka geysato dadka madayada ka mas'uula caafimaad